in maaragtay xadiiskii hore man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhiri falta'ti maniyatuhu wahuwa yuuminu bilyowmi alaakhir waxa weeyaan waa xaqullah xaqullahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay'a ilaahay dadku wuxuu xaq ugu leeyahay inay caabudaan oo aanay ilahay waxba u shariikeenin taas oo aslu diina sheekhaa ka hadlay asalka labaad waa xuquuq alcibaad sheekhu way nagala hadlay cafwiga qaacidada uu kaga jiro maaragtay addoommaha xaqooda ayuu ka hadlay laiscafiyo oo dadka mucsiriinta iyo mucwasiinta dadka baahan iyo dadka fuqarada ah iyo dadka ay kawaarista xoolahooda baabiyaa ay ku dhacaan in la cafiyo waa xuquuq ulcibaad baa ka bilaabmay xaqullah iyo xaqulwaalideyn iyo xaquljiiraan iyo xaqulmusaafir iyo xaqulyatiim iyo xaqularmala iyo xaqulmuxtaajiin iyo xaquducafaa xaqulmadluumiin waxaasoo dhammeena taasu bay soo wada gelayaan in la iska gudo labadaaba sheekha ayaa aada amsilo wanaagsanna ka bixiya kuna nuuxnuuxsaday waayo xuquuqulcibaad xaqullaahi dee cadamada ilahay buu ka soo bilaabay hataanu qofku cadamada ilahay ba waxba ka fahamsanayn wadaad baa yidhi war ilaha laga cabsoodo ilaha laga cabsoodo mid kale ka barba hadlo xidho war ilaha laga cabsoodo waxa ka horeysaba ilaha hala garto marka ilaahay qudradiisa iyo cadamadiisa iyo weynidiisa iyo jalaalkiisa iyo jamaalkiisa iyo qudradiisa iyo bacsigiisa iyo nushuurkiisa la garto ayaa markaa laga cabsoon karaa laydhahaa ilaah weyn oo cadiima ayaayna muraaqabaynaye aan is ilaalino aan is dhowrno marka waa taasoo xuquuqullaahi waa sheekhu way nagala hadlay xuquuqulcibaadna way nagala hadlay anigu waxaan ka hadlay xaqu diin diintuna xaq bay leedahay diintaa ilaahay ila diintaa lagu fahmaa xaqullaahi wa xuquuq ulcibaad diintuna waxa weye cilaaqa bayna alkhaaliqi waalmakhluuq waa xidhiidhka addoonka iyo ilaahay u dhexeeya hada huwa diin xidhiidhka addoonka iyo ilaahay u dhexeeyana waxa weeyaan waa in xaqa ilaahay layska gudo xaqa addoommadana waa in layska gudo xaqa diintana waa in layska gudo diintuna xaq bay leedahay diinta xaqeedu waxa weeyaan waa in la barto oo lagu camal falo oo la fidiyo saddexdaa weeyaan xaqu diin haddaan saddexdaa haddaan aan laysfangelin oo diintii la baran oo lagu camal falin oo la fidinin diinta xaqeediina lama gudan dadka laftigeedu bashariyadda laftigeedu sidayba ilaahay u garataa way adkaanaysaa siday adduunyo wanaagsan u helaan oo aakhiro wanaagsan helaanna way adkaanaysaa waayo diintu waxa weeyaan waa wixii if wanaagsan iyo aakhiro wanaagsan kuu soo jeediyey marka halkaa soomaalidu diinta xaqu diinka waxay u yaqaaneen salaada soomaalidu bidaat oo dadka muslimiinta maanta badankooduba xaqu diin waxay u yaqaaneen salaada u yaqaaneen waxay ku yidhahdeen waanu tukannaa maxaad naga rabtaa shanta waqtina waa tukannaa caruurteeda waa u shaqaysanaa danahayagaanu qabsannaa maxaad naga doonaysa diinta waa saasay ku dhanta loogu dhanta marka xaqu diin soomaalidu salaaday u taqaanaa ilaa man raximallah ninka soo dhodhoweeya ee haddana yidhaha waxbaan ku daray waa ninka yidhaha aw hebelna 10 baan kaga taxana aw hebelna bacda almaqrib bayna alcishaa'iin 10 buu noo akhriyaa marka khalaa diinta way noo dhanta siirada asxaabta marka la eego diintu intaa asxaabtu intaa ma ku dhaqantay mise ma intaasay ku dhaqmeen mise waxba u dheeraa ya ma intaasay salaadana way tukan jireen awhel 10 bay kaga taxbi jireen diintu saasay ugu dhammayd miyaa siirada asxaabta laga fahmayaa sidaa mise asxaabtu waxba u dheeraa haydalata wixii u dheeraa miyaa laynaga cafiyey qolada aakhiru zamaankow sima aakhiru zamaanka soo bixaysow idinku waa soo daasheen diintiinu ha idinku ekaado salaada iyo aw hebel baan 10 kaga taxanahay halkaa ha idinku ekaato inna qur-aanka miyaa ku maqasheen miaal ka soo qaad raggan inoo yimi sheekh cabdirashiid waa qaniyun can tacriif ilaahay baa
rafaca makaanahu bilqur'aani ilaahay baa kor u qaaday caalamkao dhan baa laga yaqaana carabiya cajab way taqaana waxaa la joogaa waxaa la socdaa nin 75 miyir ayaan ilaahay darti u baxayo waa macallin waa dictor waa kaa waa nin urduniyahoo falastiiniyahoo daaciyahoo 75 muu dacwadda bilaab habeenaytu ka warramayay goortuu khuruujkan iyo waxaa bilaabay intaanu khuruujka bixin dacwadda waa naqdiyi jiray buu yidhi yo maganaysaa maxaa odhan jiray dadkani tabarucaad mururin maayaan masaakiin caawin maayaan dadka maxay ay taheen hay-ado u samayn maayaan maxay sheegayaan laakiin markaa 12 bilood ilaahay dartii u baxay wax allaale waxaan ogaaday buu yidhi ceebtu inay aniga fahmadeyda ku jirtay inaanay dacwadda ku dhex jirin anaan waxba fahamsanayni inay dacwaddu sideedaa mutakaamil ku tahay oo xilkii diinta lagu gudan karayo oo lagu gudayo laakiin naqsiga aan ka dhex dareemaya inuu aniga fahmadeyda yahay maantaasay su-aalihii oo dhamme ii dhammaadeen mital kaasaa meesha maraya waxaa maraya sheekh kaloo isaguna imaam masjidahoo caalimahoo madiine ka baxay isagana waxaa la yidhaha shacbaan baa la yidhaha waxaa waraya ninkan idin hor fadhiyaa waa reer qatar weeye asalkiisu waa qatari waa nin madaxa boqorka inankiisa ayuu secretary u yahay waa nin iska reer boqora dadkaasi halkan inaga muddo gaaban bay inoo yimaadeen laakiin caalamka muddooyin dhaadheer bay ku baxaan muddooyin dhaadheer ayay ku baxaan iyo adduunyada dibadda sheekhu taqriiban sanadkii ilaa oroba isagoo dacwaddaa wada 3 jeer 2 jeer 4 jeer waa taga isagu bay u suuragaleed inuu masaajid un tafsiirka iyo tajwiidka iskala fadhiiste laakiin arrintaa imika uu ka yaro gudbayo dhowr iyo 10 sano ama 20 sanood ugu dambeeyeyba mutajawil fi lcaalam buu ahaa markaa maadaama ay dadkaasi wakhtigoodii kala qaybiyeen waxay wakhtigooda u kala qaybiyeen inay xaqu diin iska gudaan diintu xaq ay leedahay soomaalida ay salaadu diintu ugu dhan tahayna salaadu islaamku waxay ku soo biirtay 10 sannadood iyo badh dabadeed biitifaaq alculamaa leylat alisraa walmicraaj ayay soo degtay salaadu waa 10 sannadood iyo badh dabadeed iqra iyo salaada iqra iyo yaa ayuha almudathir iyo salaadu waxay u dhexaysay 10 sannadood iyo badh 10kaas sannadood wuxuu nebigu gaar u tukaday mooyaane ummadda 5 salaadood ma farin isagu gaar calaa diini nabiyullaahi ibraahim iyo wax isaga xaggiisa laga faray mooyaane xagga ilahi laga faray mooyaane ummadda salaaduguma yeedhin 13 sannadood uu nebigu maka joogay ummadda wuxuu kala hadlayey dacwad waxaa la yidhaha waxdaaniyadda ilaahay cadamatullah dikru laakhira aakhirada oo sidaa sheekhu inoogu balbalaadhiyo ahmiyat diin iyo in insaankani marka horeba ilaahay ku xidhmo ilaahay gartoo bartoo caabudo baryo oo tala saarto oo uu addoon meel sare ku xidhan noqdo 13 sanoo tawxiid wa cilmu tawxiid iyo cilmu dacwa buu ka hadlayey iyo dadka dacwadda sidii guri walba qof walba naadi walba loo gelin lahaa buu ka hadlayey marka waxa weeyaan diintu waxay ku bilaabmatay dadaal iyo dacwad bay ku bilaabmatay axkaamtu waxay soo degtay markii dad iimaan iyo yaqiin le la helay ayay axkaamtu soo degto badankeedu salaada mooyaane soonka iyo xajka iyo zakada iyo madiina ku soo degtay markaa diinta asalkeedu waxa weeyaan waa 3 qodob in la barto in lagu camal falo iyo in la fidiyo oo fidintaasi waa maxay waxaa soo gelaya dacwaddii baa soo gelaysa jihaadkii baa soo gelaya nashrulcilmi fi laafaaq baa soo gelaysa tacliimu nnaasi alqur'aan baa soo gelaysa nashru dacwa fi lcaalam baa soo gelaysa qitaalku waa juzء min adacwa waa cinda daruura laakiin dacwaddu iyo dadka in dacwad la gaadhsiiyo lagala hadlo cadamada ilahi iyo dikru laakhira iyo ahamiyat diin waa camalu yowmin wa leyla camal laga doonayo qof walba muslima 24 saacadood camal muslim walba laga doonayo camalkana ilaahay ummadda ku ammaanay ku caleema saarina waa camalkaasoo ilaahay yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ukhrijtum nebi maxamed iyo asxaabtiisa iyo man sanaca misla saniicihim sida yeeli jira ninka yeela waa khayra ummatin waa ummad ifka loo soo saaro ummaddii ugu khayr badnayd oo maxay khayriyaddaa ku heleen
ta'muruuna bilmacruuf watanhawna cala almunkar watu'minuuna billah macruufkaad faraysaan munkarkaad reebaysaan ilahay baad rumaynaysaan macnaha aayadda sheekh habeenka ka hadlaya wuxuu ihi haddaan amarka iyo nahyiga iyo dacwadda laga shaqaynin iimaankaa baan dhammaystirmaynin markaa sidaa daraaddeed koobisna waa layga dalba oo waa wakhtigaaba inagu kooban waxaanu idin leeyahay aynu isku baraarujinaynaa dad akhyaara baa tihiin dad shaqaystaa tihiin dad maarta maasha allah wada dhalinyaro oo dalkana wax ku soo kordhiyey baa tihiin shirikaadkan itisaalaadku waxbay soo kordhiyeen xaqiiqatan waxaasina wax walba way isugu jiraa laakiin waxaan rajaynaynaa inay manaaficdiisu badato adduunyadii waxbaa ku soo kordhiseene waa laydinla xisaabtamaya dacwaddiina maxaa ku soo kordhiseen mar haddii aad aragteen culimo baxsan oo madax baxsan oo akhyaar baxsan oo tujaar baxsan oo odayaal baxsan maxaa idinkuna qoondayseen oo diintii u qoondayseen baa laydin weydiinayaa salaad keliya diintooda kaga dhammaan mayse ya inaad idinkuna isqorshaysaan oo waktigiina waktina aad diinta siisaan waktina daruuriyaadka siisaan oo xadiiska nebiga kuu sheegaye saacatan wa saaca laydinka helo oo maalintii diinta wax u qoondaysaan oo wiigii diinta wax u qoondaysaan oo bishii diinta wax u qoondaysaan oo sanadkii diinta wax u qoondaysaan dadkii diinta wax u qoondeeyey ee 10% dadaalkooda waktigooda intay soo gooyeen diinta geliyey 10% diintiina wax weyn bay ka qabteen oo daahira xayaatadoodii kalena way barakowdi markay diintu wax u qorsheeyeen qorsheynta diinta nebigu waxau yidhi la yanbacis min kulli rajulayni rajul waاlajru baynahuma gurigii 2 nin joogto baa nebigu yidhi nin ha baxo ninna baylahda hala sii joogo ajarkana waa wada leeyihi bixitaankaas waa maxay dacwad buu u bixi karaa jihaad buu u bixi karaa nashru cilmi buu u bixi karaa tacliim alqur'aan buu u bixi karaa nasiixa bayna almuslimiin dadka inuu nasiixada ayuu u bixi karaa islaax buu u bixi karaa islaax bayna annaas ayuu u bixi karaa haba baxo kulliba bixitaanku wuu noocyo badan yahay laakiin guri walba waa in nin ka baxsanaadaa ninna joogaa ninna ka baxsanaadaa likhidmati diin ajarkiina way wada leeyihin ajarkiina kiis baylahda u hadhayna ajarkaa waa helayaa kii baxayna waa helayaa waxa uu nebigu axaadiistaas kitaab riyaad saalixiinku xadiiskaasi ku yaala kitaab fogba laga dooni maayo min baab aljihaadi walamri bilmacruuf wadacwa buu ku yaala de hadduu nebigu yidhi war guri walba nin ilaahay dartii ha uga baxo dee sow maaha inay diinta laysqorsheeyo dee markaa shariikadiinani waxaa la doonayaa laan walba inuu nin ilaahay dartii uga baxo laan walba midna sii fadhiyo ajarkana ay wada yeeshaan talabaad mid baan idiin sheegaya ilaahay dartii u baxa xisbi cusub soo gala maaha dhalinyaro yaryar baa dhalinyarada qaarkood waxay u soo degdegaysaa haadhe inaguna xarakaynu nahay iyaguna waa xarako war xaraka meesha ma jirtee haadhe mas-uuliyad baa jirta oo waxaa jira xaraka maaha xaraka laydinku yeeri maayo xaraka ka soo galo xaraka ka soo baxa haw qaadanina dadka qaar ba had iyo jeer inaguna xarakaynu nahay heblaayana waa xarako xaraka maaha dacwadda xisbi cusub in ummadda lagu soo kordhiyana maaha tabliiqdana culimmadu tabliiq isumay bixin dadkuba ama ku dacaadeeye ama u bixiyey waxa weeyaan nin walowba saacatan wa saaca xadiiskaa nebigaa kugu fadhiya saacatan lidaruuriyaatika wa saacatan lijuhdi diin saacadda daruuriyaadkaaga waa lagu ogol yahay saacadna diinta dadaalkeedaa lagaa doonaya dadaalkaa diintuna waa ehelkaagu ka bilaabmaya cashiiradaadu ku xigayaa magaaladaadu ku xigayaa waddankaagu ku xigayaa caalamku ku xigaya shantaa dadaal baa qof waloo muslimba ku diran yahay waxaan idinku soo gebagabaynaynaa maadaama aad xagga maadada iyo xagga itisaalaadka aad wax ku soo kordhisee dalkii waa dunyowi xagga diinteena inaad wax ka soo kordhisaan waayo qudwana waad helaysaan oo waxaa qudwo idiin noqonaya dee culimadiini waxay culimadiinu ogosha waa ina ogolaataan siday culimadiinu wakti u bixinayaan sida dadka akhyaartii wakti u bixinayaan sida dadka caalamiinta anigu south africana beri dhoweytu tagnay niman hindiyaa jooga
boqolkii 10 bay diintaa geliyeen waa tijaar waa milyaneero waa aqriyo awlaadooda xufaad bay ka dhigeen intaasoo jaamicadood bay sameeyeen 4-5 jaamicadood baanu ka sameynay Latin America hadda 35 aanu anagu soo saarnay inan ayaanu 5 isugu xidhnay Latin America u dirnay nafaqadana halkan aanu ka bixinaynaa bay yiraahdeen Latin America laga duwan waa wadan gaala ah halkan Durban baanu ka bixinaynaa bay nafaqada 5 jaamicadood Latin America laga asaasayo oo ardayda yadii ay asaasayso nunfiq min huna halkan aanu ka nafaqaynaa bay fikradda daaqada leh quwadda leh waxa ku kalifay markay diintii waqti siiyeen ee ay daruuriyaadkoodii iyo diin baahidii diinta ay mid walba wax u qoondeeyeen ay 10 ay diinta geliyeen dacwad ku geliyeen tacliin ku geliyeen cibaado ku geliyeen khidmad ku geliyeen shuuro ku geliyeen fikir caalami ay ku geliyeen ilaahay wuxuu u sakhiray dalkiina sida kariimka inay ugu noolaadaan oo gaal iyo muslimba iyaga taxtigooda yimaado caalamkiina inay anfacaan jaamacad baanu boqonay 1936 baa la asaasay jaamacadda aanu boqonay 7 farac baanu imika Afrika ku leenahay bay yiraahdeen 7 farac majlisul aclahoodaanu boqonay oo shuurul islaamiya maamulkiisu dawladaha muslimka sheeganaya aka maamul wanaagsan waana ka awood badan waa meesha kaliya aanu aragnay masaajidooda waxa ku taala calanan jamcu tabarucaad li Falastiin wadan islaam laga soo heliya jamcu tabarucaad li Falastiin fi masajid lawxa oo aan lala gabanayn oo markay kaarisada dhacdo lacagta laga ururiyo masaajidooda loo diro waa meesha kaliya aanu ku aragnay caalamka markay diinta kor u qaadeen ayaa ilaahay iyagina kor u qaaday sidoo waxaan ku soo gabagabeynaya xarako cusub leedin ku yeeli maayo oo leedin gelin maayo waxa leedin sheegaya mas'uuliyad aad leedihiin oo caalamiya marka taanu qorshaha ku daro oo de malaan baan idinku soo qornaa mise idinka bay isqoraya